السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواذا كنا كوثر أونلاين وولاشين كوثر سعيد وإذن له مرة كسور دواذا ما أنتو حين كوضا هادلينا تاقرياش النارسيسية dadka loo yaqaano flying monkeys daanyarada toola ee narsiisigu leeyahay waxaan baranaynaa dadkaas yihiin shaqadoodu maxay tahay shaqada ay u qabtaan narsiisiga maxay tahay teeda kale sidee baan ula dhaqmaa anigu ma aan hadaan ahay dhibanaha narsiisiga sidaan ula dhaqmi karaa dadkaas soo dhawaada codkaygana laga raali ahaado flying monkeys waxa laga soo xigtay filim inka ka sheekeynayna laakiin maanta filimkaas iyo daanyaradaas duula waxay filimka ka qaban jireen laakiin waxaan ka hadlaynaa dadkan flying monkeys ama taageerayaasha narsiisiga inagu waxaan af Soomaali bixinaa taageerayaasha narsiisiga dadkan maxay yihiin ujeedkoodu waa maxay rabaan marka dadka cilmi nafsiga waxay u bixin flying monkeys laakiin inagu waxaan ugu yeedhinaa taageerayaasha narsiisiga waa dadka ag dhow qofka narsiisiga wada taageera agtiisa lagama waayo aad ayay maaragtay qofka narsiisiga ugu dareystaa dadkaas oo arrimo badan bay u fuliyaan laga yaabo dadkaas inay yihiin dad maaragtay asxaab yihiin narsiisiga ama ehel yihiin narsiisiga ama ay maaragtay ama adiga bay saaxiib ku leeyihiin oo adiga ehela laakiin qofka narsiisiga maaragtay xaqiisa u leexsayno isaga taageereen isaga aaminsan yihiin isaga la socdaan ujeedkooduna maaragtay wuxuu doonaha noqday su'aal baa waxay tahay maxay ujeedadoodu iyaga tahay maxay rabaan maxay qofka daalimka ee narsiisiga ay maaragtay dadka dulminaya maxay u taageerayaan satalo iyagu ma og yihiin ruuxan shakhsiyadiisa dhabta ruuxa narsiisiga mise iyagu ma oge oo sida adigu aad markii hore adigu maaragtay ugu khaldantay ee qofkan u moodayay qof wanaagsan bay iyaguna saay qaarkood narsiisiga taageerayaashiisu way og yihiin ruuxa narsiisiga dhab ahaan wuxuu yahay way og yihiin maaragtay inuu yahay qof beenaala way og yihiin qof xun yahay way og yihiin qof khaayina yahay way og yihiin qof dadka ka dhib maaragtay ka danaysta oo hadhowna maaragtay tuura inay yihiin oo maaragtay way og yihiin qof aan ammaano lahayn inuu yahay waxa sifooyinka faraha badan narsiisiga leeyahay ee taqaanida oo dhan way og yihiin inuu yahay qof ku sifaysan laakiin maslaxad ay maaragtay ku qabaan narsiisiga damba ay maaragtay kaga jirta maslaxada darteed bay taageereen ama waxa laga yaabaa maaragtay inay yihiin qof saadii oo kale aan aqoon badan u lahayn ruuxa narsiisiga oo aan ogeyn foolxumada ruuxa narsiisiga oo waxay u haystaan maaragtay qof wanaagsan oo saxan oo dhinaciisa maaragtay wajiga wanaagsan buu tusay waqtiga ruuxa narsiisiga oo qof boqol waji leh qof walbana waji buu gashtaa waji ku munaasiba marka boqolkiisii waji mid wanaagsan buu gashtay dad qofkan uu la dhacsay aduu koornay adaa qaldan adaa ka khaldayihiin adaa ruuxan dhibay adaa lagu taag la'yahay talom qoraasaar baad u baahan tahay maxaa kugu dhigay hadaad u cabatidba ma istahado qabo aduu daalac ku raacay way ruuxan uu aaminsan yahay way adigu bilowgiisa soo kala maartay ugu arkayso qof wanaagsan oo maartay u difaacaysa marmarka qaar marka shaqadoodu maxay tahay dadkan maaragtay flying monkeys ama maaragtay taageerayaasha narsiisiga shaqada ay qabtaan maxay tahay dadkan shaqadoodu waxay tahay horta inay taageeraan narsiisiga oo maaragtay ay la faafiyaan beenaha uu faafinaya la faafiyaan oo dadka kale u sheegaan inuu maaragtay qofka narsiisiga yahay qof dulman qof aad dibtay qof maaragtay nolosha lagu adkay qof dulmana qof miskiina qof maaragtay u dulqaadan la oo waxaan ku leeyahay dulqaadkiisa maaragtay aad maaragtay lagu wada joogo oo wax beena fara badan bay sheegayaan waxay maaragtay waa markhaati beenay furayaan marka adiga waxa noqonaysa hal qof oo kaliya narsiisiga kooxdiisa wax noqonayaan jamaacadan marka dadku xornayaan wadariya waaxidkeeba waalan ma halkan qof baa waalan mise ninkaadana inaba ay ognayd wanaagiisa intii og yihiin iyo dadkuna ay sheegayeen keeba waalanta ilaahayna uu og yahay waxa lagu soo mariyay qofkan wuxuu kugu sameynayo waxa uu ku wado waa og yahay ilaahay adna waad ogtahay laakiin maadaama adigu aan jirin cid maaragtay saa ku daba carcararta oo fanis ku isagu haysto halkaa uu kaaga baawar weynaanaya waayo markaa saan ula dhaqmaa dadkaas flying monkeyska ama taageerayaasha narsiisiga ama daanyarada duula seebay tahay inaan ula dhaqmo maxaan sameeyaa horta marka koowaad dadka ka baro
asxaabtaada haddii ku jiraan, haddii jaarkaaga ku jiraan, haddii ehelkaaga ku jiraan, hadday qofka narcissistka asxaabtiisa ama jaarkiisa ama ehelkiisa ka mid yihiin, horta dadka ka baro 1 2 3 dheh. kow hoosta ma ka xariiqto dadka ma kaaga soocan yihiin waaye horta lahawna wax shakiya wax yaroo shakiya oo ah shakiga maarta caafimaadka qabo oo ah inaad niyad samaanin oo aad u malaynay dadkoo dhani ay saado kale iska niyadsan yihiin, dadkoo dhan iska fiican yihiin, dadkoo dhan aanay xumaan niyadda kuugu hayn, dadkoo dhan aanay laba wajiila ahayn oo hal wajiim ay leeyihiin. iska baabii yaroo shakiya yeelo qofka maaragtay shaki yar kugu jiro waayo shaki yar wuxuu ka hor istaagaya horta in qof kasta aad iska aamintid waaye maaragtay xogahaaga ha siinin qof kastoo maaragtay laba erayo wanaagsan kugu dhahda ha usoo wada bixin, ha wada rumaysan, calooshaada uurkaaga waxa ku jiro oo dhan ha soo saar. qofku ha ku caddeeyo inuu yahay qof maaragtay يعني la noolaanshihiisa kuu muujiyo inuu yahay qofkani qof daacada, laakiin qof kastoo laba eray ku dhaahdo daacad dee ha u malayn waaye. inta saddexaad tamartaada ha ku lumin dadkan flying monkeyska inaad ka dhaadhicisid ama dadkan taageerayaasha waa narcissiska inaad ka dhaadhicisid inaad adigu saxan tahay, adigu dulmanaa tahay, uu narcissigu warkiisu been yahay, inuu maarta adiga ku dhibaateeyay, inuu been ku sheegay, inuu khiyaamay, inuu lacagtaadii qaatay, inuu waxyaabuhu kuu sameeyo dhan. ha ku daalin inaad u sheegtid aad ka dhaadhicisid ruuxa narcissiga taageero sababtoo ah warkaaga ma maqlayo, quful baa ku jabsan, narcissiga quful ku jabiyay, maanmaydh baa lagu sameeyey, brain wash ma la odhan jiray ayaa qofka lagu sameeyey. hadalka uu sheego ruuxa narcissiga ayuunbuu maqlaa, wuxuu ku dhaahdaa waxaasaa jira baa jira, wuxuu dhaha ma jiraan. marka adigu tamartaada iska lumin yaa hana ku calaacalin, waxna ha u sheegin. waxay ku celceliyaan oo maaragtay cashaladun bay yihiin iyagu waxay ku celceliyaan wuxuu narcissigu u sheego. marka adigu narcissigi ma tihid, marka waxba ma sheegi kartid. u ogolow inay sheegaan waxay doonaan, iska sidaa yani ha ku mashquulin, waxay doonaan ha sheegaan, waxay doonaan ha aaminsanaadaan, isha ka eeg, iska dhaaf. adigu noloshaada gaarkaa wado, maxaa la yidhaahdaa wixii adiga kula saxsan samayso, go-aankaad adigu gaadhay ku dhaqaaq, iyagana ha isku mashquulin. ta afraad albaabkooda iska xidh. way ku imanayaan, waxay rabaan inay kula sheekaystaan, waxay doonayaan inay maaragtay wax ka ogaadaan, waxay iskaga kaa dhigi doonaan haddii doonaan inay maslaxadaada wadaan. albaabkooda iska xidh. isagaa soo dirtay, isagay dhaga u yihiin, isagaa maaragtay jawaasiis u yihiin, xog bay kaaga qaadayaan ama waxay isku dayeen inay kugu qanciyaan inaad khaldan tahay, in adiga xeera khaldan yihiin, inaad adigu maaragtay dhib wada tahay ayay rabaan inay kugu qanciyaan. almuhim albaabkooda iska xidh, way sunaysan yihiin iyo suntooda maaragtay kusoo gaadhsiin. xogtaada ha u sheegin, warkaaga ha la wadaagin, sirahaaga ha u sheegin, waxaad damacsantahay ha u sheegin, waxaad samayn doontaa ha u sheegin. ka xidho albaabada, ka xidho haye saasaa allah khayr lahaa ka dhigo bes. laga yaaba ehelkaagay noqon karaan, asxaab dadaad tihiin bay noqon karaan, walaalahaabay noqon karaan, isaga si ehelkiisay noqon karaan. iska xidh, halkooda ku xidh. markuu narcissigu xogtaada dhabtaa waayo, iyaguna ay maaragtay waxba soo gudbin waayaan, aanay waxba kaa helin, shaqadoodii adiga kugu fulinaayeen way yaraanaysaa, dhibta adiga kugu fulinaayeen way yaraanaysaa. sababtoo ah narcissigu waxa uu maaragtay wax ku dhibaateyn karaa waa xogta uu hayo, oo xogtaasu qofka ku kontrooli karaa, xogtaasu wax ku gaadhsiin karaa. laakiin adigu maadaama aad xog siinaynin isaga iyo dadkii ka ag dhowdhawaaba, waxaan ku leeyahay waxaad helaysaa space aad maaragtay go-aanada ku gaadhid, maadaama aad ogaatiin ruuxan yahay ruux narcissiga. intaasaan maanta ku joojinaynaa xalqadan ah taageerayaasha narcissiga ama flying monkeys dadka la yidhaahdo. intaan xalqadanba ku kulmayno please channelka hala taageero, channelku weli wuu cusub yahay, subscribe-na hala dhaho, halana lagu faafiyo gruubada, laga digtoonaadeen kala hayseen dadkan uga digno inaan uga digtoonaadno dadkaas sunaysan ee la yidhaahdo narcissiga. السلام عليكم.